asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal meel walbaad ku sugantii kusoo dhowaada channelkeena Hogan 24 Media waanigoo Cabdulle Macalin Maalto. Dad badan caadi ayay la tahay inay meel cabitaan ah horey u sii aadaan markii ay shaqada ka baxaan, gaar ahaan markii ay usbuucyo shaqaadaga soo wadeen. balse nin shaqaale ah oo ku noolaa waddanka Japan waxaa laga yaabaa inuu ka qoomameeyay arrintaas. balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena, like saar muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan, share leh oo la wadaag saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo u wanaagsan sida adigoo kale. hana hilmaamin inaad follow dhahdo page-keena, sidoo kalena subscribe dheh YouTube channelkeena, gambaleelkana furo si aad u heshid barnaamijyada cusub ee aan soo gelino. mahadsanid. kadib markii uu ka lumay falaash xog badani ku jirtay xilli uu habeen ku maqnaa goob lagu caweeyo oo uu saaxiibadiis u raacay. haddaba sababtu maxay tahay? waayo xogta falaashku ku jirto waxay ku saabsaneyd macluumaad ku dhowaad nus milyan ruux ay lahaayeen. ninkan oo aan la shaacin magaciisa ayaa falaashka geliyay boorsadiisa ka hor inta uusan aadin baar khamriga lagu cabo oo ku yaalla magaalada Amagasaki ee ku taalla waqooyiga gobolka Osaka. dhowr saacadood ayuu ku jiray makhaayadda maxalliga ah ka hor inta uusan ugu dambayn ku miyir beelin waddada. cabitaanku iska badiyay awgiis sida ay tabiyeen warbaahinta maxalliga ah. markii uu ugu dambaynna soo kacay ayuu ogaaday in boorsadii iyo falaashkii xogta ku jirtay labaduba ay maqan yihiin. telefishinka Japan ee NHK ayaa shaaciyey in ninka oo la sheegay inuu 40 sano jir u yahay uu u shaqaynayay shirkad loo xilsaaray inay faa'iidada cashuurta siiso qoysaska. ninkan waxa uu xogta shakhsiyaadka magaalada oo dhan ku shubay falaashka ka hor inta uusan la kulmin saaxiibadiis oo ay magaalada isku raaceen. saraakiisha maamulka magaalada ayaa sheegay in falaashkii ay ku jireen xog ay ka mid ahaayeen magacyada, wakhtiga dhalashada iyo tilmaamaha guryaha ee guud ahaan shacabka degan magaaladaas. waxaa kale oo ku jiray falaashka macluumaad kuwaas ka sii xasaasisan oo ay ka mid yihiin kuwa ku saabsan xogta canshuuraha ee dadka, lambarada akoonnada ee bangiyada iyo faahfaahinta la xiriirta qoysaska hela amniga dhinaca bulshada ah. balse nasiib wanaag, saraakiishu waxa ay sheegeen in xogta ku jirta falaashka ay ku xiran tahay qaanad lambar sireed leh. waxayna saraakiisha intaas ku dareen inaysan ilaa hadda jirin wax calaamado ah oo muujinaya inuu jiro qof isku dayay inuu eego xogtaasi. balse dhacdada lagu ceeboobay ayaa sababtay in madaxda maamulka magaalada raaligeli ka bixiyaan arrintan, iyadoo duqa magaalada iyo hogaamiyeyaasha kale ay madaxa hoos ugu dhigeen dadka deegaanka si ay ugu cudur daartaan. waxaana si aad ah uga qoomameynaynaa inaan si weyn u waxyeelaynay kalsoonida shacabka ay ku qabeen maamulka magaalada, ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha maamulka magaalada Amagasaki oo qabtay shir jaraa'id. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.